laba shay kale ilaa weligaa inay isla kulmaan waa habeenkii xilliga dambe iyo xilligaasoo cunto culus ah cunto sidaas waxaan ku leeyahay jirkeenu wuxuu u nidaamsan yahay hab ama qaab uu u maamulo oo weliba u muhiimsan tahay qaybta dheefshiidka xilliga dambe habeenkii markii uu cunto cuno qofka culus lana seexdo isla markiiba waxaa qalqal ku imaanaa dheefshiidkii waxyaabaha aan la mahadin ee qofkaas isku arki karo sidoo kale waxaa ka mid ah in habeen kasta xilligaas markii uu gaaro baahi badan uu dareemo kadibna jirkiisu uusan raalli ka noqon ilaa cunto culus uu ka cuno sababtu waxay tahay hormoonka baahida keena ee ghrelin la yiraahdo hunger hormone ayaa habeenkii xilligaas aad u badanaya kadibna qofkaas markasta wuxuu isku arki karaa ama isku arki doonaa in baahi badan ay qabanaydo ilaa calooshu ka buuxsana ma joogi karayo sidoo kale hormoonka loo yaqaano leptin oo hormoonka dheregta keena aad ayuu u yaraanaya habeenkii kadib meesha waxaa ka imaanaya qofkii inuu dhereg dareemo xataa meesha ka baxida marka hormoonkii leptinka dheregta mataqaana ama shaayadka qofka dareensiin lahaa meesha waa ku yaraaday hormoonkii kalena waa la badiyay ee baahida dareemi lahaa kadib qofku wuxuu dareemayaa habeenka salaas marka la gaaro craving inuu mataqaana cunto u baahan yahay kale taasina waxay keeni kartaa marka miisaanka la kordhay keeni kartaa haddii miisaanka uu kordhana maxay imaan karaa in wax la yiraahdo insulin resistance ee meesha uu yimaado oo yani qofkii dufan badan oo yeesho jirkiisu miisaanka ku kordho kadibna kaadi macaanka ama sonkorowga diabetic type 2 ama nooca labaad ee kaadi macaanka qofka ku dhaco sabab la xiriirta hormoonkii insulinta oo resistance noqday inuu sokortii xareeyo ay suurtagal u noqonin inta badan marka cuntada xilliga dambe la isticmaalo oo la seexdo waxay saameydaa saddex hormoon inta badan saameydaa oo maanta uu daaran mawduuceena waa hormoonka dheregta oo mataqaana aad u bata xilliga habeenkii kadib qofka caqab ku noqda iyo hormoonka kale la yiraahdo leptin ee keena dheregta qofka dareensiiya oo yaraada iyo hormoonka insulin la yiraahdo oo asigana shaqadiisii qabso waayo sokorta jirka lagu xiriyo waayo qofkana uu nuglaado inuu sokor ku dhaco arrinkaas marka wuxuu ku tusayaa marka inay muhiim tahay in qofku habeenkii xilliga dambe soo cuntada la seexan inta cuno ay muhiim tahay xilli hore inuu soo cunteeyo oo galabtii iyo dad cashay kartina cashaydo xilli hore maghribadii ina cashaydo cishadii ama ina cashaydo ugu yaraan waa inaad heli kartaa space markaad cuntaydo ugu yaraan 2 saacadood kadib aad seexato waxyaabaha uu isku arki karo qofka waxaa ka mid sidoo kale in dheefshiidka caloosha wax ka qaldamaan aashata badan caloosha mataqaana oo qofka isla markiiba aashta iyadoo degin oo wali kor saaran cuntada lagu shiiday oo inta seexda kadibna aashtada kor timaado kadibna dhuunta ay soo gaarto waxaa lagu taliyaa marka dadka isku arka xaaladaha noocaas oo kale in barkinta dheereystaan oo kale oo sariirta oo kale ay soo dheereystaan oo waxyar si aysan mataqaana aashtada aysan kor u soo aadin hadda waxaan ku wada talinayaa inaan habeenkii xilli dambe aadan cunto isticmaalin waliba cunto culus aadan isticmaalin insha Allah taala